السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله لها الصومالية وحن لا عمر ديري عباد سنة صوبن عافيمات سريعة نرساقد واسعة ملك استدونك جوجتان وقت وهينو وذا وناكسن هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى. وحن إذن الله هداد وعسبتهم ولا ليال فضلا سبسكرايب يا لايك هيقل تجينينا كومنت جوجل قشة شير إذن كليواي ولا لي هوري إلى تشوقي لايك شير كومنت وحقين aad iyo aad baan kaga mahad celinaya waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo sodohaha oo labadan bari naqabsatay oo hawada ku jirta waxa waaye qof maalinba wax baa laga hadlaa waan la socdaa laakiin tani waxay noqotay arrin runtii lagu kala duwan yahay ra'yiga run ahaantii anigu sodohda haddaynu islaam nahay oon soomaali nahay sodohuhu waa waaridkeen waa waaridkaayoo kale labada dhanba wiil iyo gabarba sodoh iyo sodog marba hadday labada qof isguursadaan waaridiintu waa waaridka salaadna kaama jabayaan aabbaha hooyayaalkana warkooda badaa calaashaan waa hooyada iyo aabbaha oon ku dhalin labada dhanba waa waaridka laakiin waxbaa jira sodoho waxaa jira lasoo gamay sodoho lasoo gamay baa jira oo runtii aad iyo aad u xun yaan been la isku sheegin qofka xun waa xun yahay hala dhaho kan wanaagsanna waa wanaagsan yahay hala dhaho sodohuhu ma wada xuma run ahaantii anigu waxaan waayey ilaa hadda ma arkin sodog la leeyahay sodogaad baa saas iyo saasa sodokaan baa saas yiri sodokaan baa saas yiri la dhahaayo weli ma arkin laakiin sodohyaalka waa laga eed sheegtaa ilaa iyo intaan anigu arkayan anigoo aan noolaa intaan maqlay iyo intaan life u arkayba alxamdulilah horta aniga sodohday isku meelna ma joogno isku meelna ma deganin duco waxaan ahayna wallaahi inaan weligay ka arkin inay noo ducayso oo tiraado ilaahu saa idinka dhi oo weliba ii ducayso oo maxaan ku dhahaa duco igu rarto meel walba igaga rarto wallaahi anna waa maaragtay kama dalbado dhibaato iyo xumaan midna weligay kuma sameyn haddana uma soo wado laakiin dadku saas ma wada aha dadka danba isu keenta dad waxaa jira isku meel degan oo dantu isku keento kala meel inay kala degaan danta u ku kaliftay laakiin sodohahaas qaar waxaa jira wiilkeedu inuu intuu guursado xaafad kala dego aan ogoleynba dan iyadoon isu keenin danta kuwa isu keenta waaba gaar kuwaan dan isu keenin oo waxaa jira sodohda dhexayso wiilka gurigan wax ka soo deg okay sodoha markaad wiilkeedu soo dego guriga iyo gabadhii u keensadayba halkaa kuwa waxaa jira ilaahay isku maceeyo oo sidii gabadheedii oo kale ula dhaqanta gabadhuna sidii hooyadeed oo kale ula dhaqanto oo wiilku uusan gabadhaba saa u fiirin karin wax yarna ay hooyadu ka celinayso wiilka ay leedahay wariyaa gabadheedu waa gabar fiican macnaha waa hooyadiis sodoh saas ahaa jirta markii dadku ay dan isu keento kuwa waxaa jira dantu aysa isu keeninin ee qof walba meel uu dego hooyadu soo booqdo ama iyadu ha booqato laakiin guri gaara degan sodohdaas saas bay wax u farfaraysaa saas kuwa waxaa jira laga subxaanalaystay annagu waxaynu aragnay wiil gabar guursaday soomaaliyeed oo gabar guursaday horta markii hore gabar u guursaday life baan u ahayn ilaa haddana waa naqaanaa wiilku gabar buu hore usoo guursaday ilmay u dhashay ilmihii qaar waa ka dhinteen 2 cunugoo u hartay hooyadiisu u geystay hooyadu markaa wiilkii maadaama nin shaqaysta uu yahay biil buu ku siinayay wuu ku hayay oo ku macnaha ku dhaqaaleynayay wiilkii maalintii dambeeto waxay tiri wuxuu u sheegay hooyadiis inuu hooyo aroosi doono uu gabar rabo gabadhaas in loo doonan uu doonayo aabihiis iyo adeeradiis iyo familkii sidii dhaqanku ahaa gabadhii yarayd reerkoodii baa gabar yar haddana oo weliba ilmo yaroo iskuol dhigata waay oo iskoolka hadda macnaha aan weli dhammaynin
halkaasaa iskoolka xataa looga saaray. gabadhii yarayd waxaa loo tegay reerkeedii. ninkii waa la siiyey, xooluu dhiibay, waxbuu dhiibay, wuxuu dhahay bes gabadhaas baan doonayaa. weligiis ismuu dhihinin hooyadaabaa dhibaato kugu sameynaysa, waxna umay sheegin. wiilkii wuu baxay, guri buu samaystay, aroos baa loo dhigay, wuu dhigtay, gabadhiibuu geystay, reerkiisii halkaa u degan. wiiggii markii toddobadii ay kasoo baxeen, hooyadii wiilka dhashay oo habar laga yaabay, hore looga yaabanaan jiray, oo islaan waalan oo hadda wiilka soo xaraysato oo balaayo la sheegayay, habartii ilmihii markii wiilkeedii shaqo tegay ay ogtahay inuu shaqo ku maqan yahay, ilmihii labadii cunug bay soo kaxaysay, gurigiisii bay keentay. gabadhii yaraydoon waxbaba ilmahaba garanaynin, xataa ilmahaba looma sheeginba. nin baa ku aroosay, ninkii baa looga xaaqatay, xoolihii dhiibay, wax walbuu dhiibay, aroos buu u dhigay, guribuu geystay. dhag meeshii inay waxay ahayd in marka hore laga dhaadhiciyo oo arrimaha loo sheego, oo uu dhaho walaala ilmihii meelan geeyo mahayo, hooyana waa tanaayo, nin bay aroosaysaa, ilmihiibay ii tuurtay, walaalay halkaan aan keeno. oo arrinkii gabadhi ayadoo maskaxda ugu jirto loo keeno, wax dhan bay ahaan lahayd. hooyadii markay ogaatay wiilkii oo shaqada ku maqan, fag bay soo tiri, labadii cunug bay soo kaxaysay, gurigii gabadhay keentay. waxay dhahday ilmahan waa kuwaana waa ina haysaa. oo yaa dhalay? gabadhi yaray tiri, dee ninkaagaa dhalay oo naag hore uu kasoo dhalay, markaa de ilmahan intaa hayn kari waa haayay, haddana adaa laguu soo guursaday. ilmahaba in loo soo guursaday gabadha yar oo inay koriso ayadu hayso loo guursaday ayay islaantii ka dhaadhicisay. markaase waxay dhahdeen aniga ilmo la iima soo guursan, aniga ninkaa ay soo guursaday. maxay tahay ilmahaad sheegay? ilmahan maba aqaano. haddaada aqoon bay tiri, haddaadan ilmaha haynna waa lagu furayaa. si caadiyay ugu tiri, ilmaha yararka adaa lagu soo guursaday, haddaadan hayn adaa waa lagu furayaa. gabadhii yareed waa tii oohin la jeesatay, kabaheedii xiratay, garsaarteedii qaatay, gurigoodii aaday, way ka tagtay gurigii. wiilkii waxba kama warqabo. ilmihii meeshay uga tagtay habartiina, ay tiri ama hay ama ahayn, aniga la iima guursan, ilmaha adaa lagu guursaday. gabadheed gurigoodii bay tagtay. ninkii markii qadadii la gaaray, guriga waqtiga la imaan jiray, nin wuxuu ahaa gurigiisa mar walba usoo qada doonta. wuu yimid guriga markii laga caruura yar yaraho meesha baahi la baktinayo ooynaayuu yimid, oo meelay aadaana garanaynin. war maxaa idinku dhacayaa halkaa idin keenay? cariguu fiifiiriyay, waxbana wuxuu orday, carruurtiiba soo kaxeeyay, guriga hooyadiisu geeyey. hooyadii waaba wiilkii buris bay kasoo horbaxsay. waryaa aniga iima keeni kartid ciyaalka, naagtaad u guursatay ha kuu hayso carruurta. hooye naagtii maba haye, gabadhii maba haye, xaggeed? gabadha anayba afka i goosatay markaan ku dhahay ilmaha adaa laguu soo guursaday. marka ma garanayo, malaa gurigoodii bay aaday. wiilkii bal wax yar igu siisin intaan soo noqonay. wiilkii wuu cararo, gurigii gabadha iyuu tegay, gabadhii oo guriga joogta. hadda labada islaamooda markaa is arkaya soo ma aha. gabadha hooyadeedna ulbay kaga hortimid, tiri haddaad gurigayga soo geshid naayaa waryaa iska jir. ninka naagta islaanta hooyadaaya ee aniga gabadhayda gurigii intay ugu tagtay ilmaha u tuurtay oo tiri ilmaha adaa laguu soo guursaday. anaga gabadhayada ilma umaada soo guursan, gabadhayduna nin ilma leh. shalay bayba ahayd khalad waxaan kuu siiyey. horena waxaad noogu tiri hooyadii baa ilmaha i haysa. haddaadse ilmaha xataa meelaad geyso weydo, ma gabadha si toosa uga dhaadhicisidoo arrinta usoo bandhigtido si sharaf loogu seebay gabadheeda ugu goodin kartaa iyadoo og inaan noolahay. labadii islaamood baa is arkay, jiq dagaalkii ugu dheeraa. aakhirkii wiilkii gabadhii halkiiba ku furay. gabadhii diiday, ninkii ka dhaaratay. islaantii baa lagu kacay wiilka dhashay oo layidhi maxaa afaaraa isku geliyey? maxaa wiilka gurigiisa ku geeyey? maxaa ilmihiisa haddaad shalayba haysay maad isaga tartiib ugu yeertid oo dhahdi maandhow ilmaha intaan ku hayn kari waa ku haaye, haddana xaas baad yeelatay, guri baad yeelatay, gabadhaada ka dhaadhici inaad ilmaha keenayso guriga, oo si kaloo si tartiiba uga dhaadhicisa. maxaa kugu kalifay inaad gabadha iyo reerka kala daadisid? islaantii way isku ceebsatay, way isku ceebsatay. islaamo marka saas ahaa jira
oo runtii aad moodidba gabadha haddii wiilku soo guursaday inay khadaamadeedii tahay oo ay tahayba waxay rabta ay ka samayn karto. haddii kale la furayo waa ugu goodiso waa lagu furaa haddii kale. marka islaamaha qaar wanaagsan baa jira oo ilaahay iimaanka geliyey oo waxaa jira maxaa ahaayeto aan u quurinin gabadha wiilkeedu qabo ama hala deganaato ama meel kale ha ka deganaato. laakiin aniga shaqsiyan waxaan qabaa wiilkii gabadhu inay meel gaara degan yihiin inay ka wanaagsan tahay. mar haddii guri la wada degan yahay isku dhac lama weynayo. laba wada dhaltaa isku dhacda oo guriga wada degan oo isla dhashay. hadda family isla dhashay baa isku dhaca. marka gabar islaameed oo laydin keenay oo guriga aad soo dejiseen waa la isku dhacayaa. haddii la isku dhacana ma fiicna. sodohda iyo gabadhu inay isku dhacaan waa wax aada looga duceysto run ahaantii. sodohahana kuwa ducaqabooyin waa ku jiraan, kuwa shadaadiinana waa ku jiraan. waynaysa ogyihiin wiilka iyo gabadhu hadday isguursadaan hala isku daayo, ceeb ma aha. weliba waxaad ku tari kartid ku tar. weydii hadday wax u baahan yihiin. gabadha kalgacal gasho, adna hooyada kalgacal gasho, micnaha isku soo dhawaansho hala sameeyo. laakiin xukun meeshii yuusan imaanay anaa wiilkayga dhalay iyo anaa gabadheeda dhalay. labada islaameed hadday is arkaan waa dhibaato. haddaysa nooleynna waaba gaar. waxaan arki jiray naaga ka duceysta sodohda. ilaahayow kuwa dhahayaan aragnay. ilaah oriyaa hooyadaa ma noosha? hadday hooyadaa noosha anigu ku guursan maayo. kuwa dhahayaan aragnay. marka dee waa baddii oo halka malaaygii badda halka qurminaya. hal malaaya badda qurmiyaa la dhahay. sodo xun waa ku jirtaa. waa inay ka waantoodaa. sodohaas waa in runta loo sheegaa. yaan la dadin. waarid inay yihiin waa la ogyahay. laakiin dhaqanka kala duwan, dhaqanka ay wiilasha iyo gabdhaha ku kala kaxaynayaan ha joojiyaan. gabadhu dad waxaaba jira oo dhaqamada soomaaliyeed, dad waxaa jira wiilku hadduu gabar guursado ay khasab ku tahay inay guriga soo dejiso, inuu soo dejiyo guriga, oo gabadhaasi guriga meel ka degan tahay, oo islaanta ka war hayso, oo islaanta dhowrto, oo islaanta ilaaliso, oo islaanta wax u kariso, islaanta wax siiso. ya waxa waaye waa dhaqan aanu leenahay soomaali haddaan nahay. laakiin ma naqaana jidka loo marayo. wax walba xukun anaa ku guursaday waxaan raba samey adduunka kama jirto. ma soconayso sheekadaas. hooyadaa gurigeeda haddaad dejinayso ha ahaato waxaad ka wada arrinsateen, waxaad isku ogtihiin. haddii xumaata timaadana ninka ilaahay baa maaragtay ixtiraamay. waa inaad hooyadaa la hadashaa, tirada hooye maxaa dhiba, maxay gabadha kugu samaysa, hooye gabadha iska daa. oo gabadhana aad tirahdaa walaalay waa hooyo, iska dulqaado, waa qof weyn, waa dadkii aad isku wadataa. laakiin hadda nayaa hooyada lama hadli kartid. asna ayaduna ay tiraahdo war aniga hooyada afka iguma soo taagi karto. meesha lama wada deganaayo runta markii laisku sheego. marka islaamaha waxaan leeyahay anigu khaasatan maba qabo laba qof oo isqabtaa inay guriga waarid diinta degaan. labada dhanba. gabar baa nin guursanaysa, nin bay guursanaysa, meel asagii isku filnaasho ma haysto, gurigoodiibuu la degayaa. way jirtaa dad saasaa jira. gurigii sodogiis iyo sodohdiis ayuu guri ka degayaa. qofkaas masaa privacyba helaya, masagabaa ixtiraam helaya. sodogiisu kasoo horkacayaa subax walba soo gabadhiisii qaba. acuudu billah way dhacdaa. markaasaa lagu leeyahay wiilkan walaalkayaa dhalay, gabadhan walaashayaa dhashay. markaa gurigii baa la wada degan yahay, waa famil. laakiin mar walba sodohi waa sodoh. gabar wiilkaagu qabana waa gabar wiilkaagu qabo. privacygooday doonayaan. haddaada ku ixtiraamayni marka ay kula degan yihiin privacygooda iyo noloshooda, fadlan iska fogee intii adiga lagu eedeysan lahaa. guri kaleeto ha degaan. ku caawi haddaad awoodid. marka insha allah biidni illaahi tacaalaa waxaan idin leeyahay walaalayaal, sodohdu
isku mid ma aha, sodohu isku mid ma aha. Sodoho xun baa ku jira, yaan la dhihin sodohu waa wada wanaagsan yihiin. No, ma wada wanaagsana. Kuwa xun ood ka shahaadanaysaa ku jira. Marka anigu waxaan dhihi lahaa intiiba la isku xumaan lahaa, wiilka iyo gabar hadday isqabaan meel gaar ah ha deganaadaan. Qofkii ku caawin kara labada dhanba ha ku caawiyo, kii kalena faraha ka qaado. marka insha Allah biidnillah anigana ra'yigaygu waa kaas. sodoh iyo sodogba inay waarid yihiin lama diidana, waa waarid, laakiin intiiba la isku dhici lahaa meel ha kala deganaadaan. haddii kale soo ma ahan dadka privacy loo daayo. marka khayr baa idin rajeynaya. Assalaamu calaykum.